muhiimadda ugu badan waxa way xalay waxaan daawanayay telefishin wuxuu ka hadlayay bahashan dumarku ismariyaan ableeynu ismariyaan inkastoo la yiri inamadiina imku way bilaabeen dhalinyarada waxa ugu daran waxa weeyaan qofkii waxa la marinayaa diirkii buu ka saarayaa xanuunkii buu u nugleynayaa sab saxara wixii afrikadan saxaraha oo dhan inaga ilaa 6 dawladood oo inaga sukeeya dadka waxa ismariya la sheegay dabadeedna waxa weeye waxay u nuglaanayaan kansarkii waxay u nuglaanayaan macaankii waxay u nuglaanayaan wax walba de qof bini'aadmiga diirkii laga saaray oo garanaysa aan ku wacyi gelino dhalinyaradeena in dawadaas la joojiyo way jidhkaagii ayay furaysaa waa la qabaaday qolada afrikaanka ee qaylinaysa dadkoodii sawiraysa dhibaatada ay leedahay dadka tusaysa si kuwa kale uga badbaadaan kow niman kaloo xamed cabdiraxmaan iyo lahaa nin halka ka hadlayay iyo dawada indhayduha dawada gabdhuhu ismarinayaan ay isu qurxinayaan hala joojiyo hadbanaga gabdhaha quruxdooda ka joojin karay oo waxaa nagula hadlaysaa wax dhibaato adduunka kaleba dhibaato ma gaadhsiiyeen ma kuweenu gaadhsiiyey runaan isu sheegno yaynan isku maaweelini waxaan jirin dawad jir dishaa ma jirto kow